dadweynaha ay wakiil ka yihiin inaan qorshaha kama dambaysta aan u gudbin doono intaanan u gudbin aan dadweynaha u soo bandhigno oo ay ku daraan wixii aan ka tagnay oo ay ka tiraan wixii ay u arkaan inay siyaado tahay talooyinkoodaas urursanna marka ugu dambaysta uu noqdo waxaan u gudbin doono baarlamaanka haddii ilaahaydno oo qorshaheena siyaasadeed marka aan hadal jeedinta yeelan doono aan u gudbin doono waxaa kaloo iyadana halka markaad aragtaan aan aad ugu xardhanayn oo ku qornayn waxyaabo badan oo ah farsamada fulinta iyo sida ay noqon doonto qaabka loo marayo ee dawladnimo maxaa yeelay sirta dawladda oo dhan buug laguma xardhi karo marka waxaan rajaynayaa inaysan u qaadan waxa halka ku yaala 5 sano xarfihii la fulin lahaa oo dhan laakiin waxay muujinaysaa inay daaha furto meelaha aan rabno inaan toobiyaha saarno waxaan kaloo jeclaystay in 5 sano oo soo socota dadkeennu ay bartaan isla xisaabtanka dadkeennu ay bartaan inay dawladnimada qayb ka ahaadaan dadkeennu ay bartaan inay madaxdooda wax ay kula xisaabtamaan ay haystaan marka qorshahan maadaama uu qoran yahay waxaan rajayn doonaa inuu noqdo qorsho la igu xisaabin doono haddii ilaahay xilka igu guuleeyo oo markhaanti noqon doono aan hadal aan noqonaynin qorshahaas markii doodiisa iyo qabanqaabadiisa iyo ka hadalkiisa waxa ka hadlaysan Puntland iyo waxa aan rabnay inaan ka qabanno waxaan ku soo ururinay 2 kelmadood oo hal hays u noqotay ama gundhig u noqotay qorshaheena siyaasadeed ama ololaheena siyaasadeed oo lagu soo koobay waxa aan damacsannahay oo ah tayeyn iyo tiigsi waxaan ku soo ururinay inaan tayeyno meelaha aan u aragnay inuu habaca ku jiro qalooco ku jiro oo u baahan in dib loo hagaajiyo oo ah hay'adaha dawladda dhammaantood waxaan kaloo ku soo koobnay inaan tiigsanno dareenka dadka ay ka rabaan maamulkan inay ka helaan marka labadaas kelmadood waxay gundhig u yihiin shaqadeenna siday u ekaan doonto waxaan rabnaa inaan dhammaan waxyaabaha dawladda laga dhaliilaayo ayna noqon inaan wax ku dul dhisno ee hadafkeenna ugu weyn ay noqoto inaan tayeyno ama aan dib u habayn ku samayno reform ku samayno maxaa yeelay dadka muddadii aan la tashanaynay waxaa soo baxday Puntland habac weyn inuu ku dhacay muddadii 20 sano ahaa sababo badan oo soo tartarayay haba u darnaato 5 sano u dambeysay waxaan ku soo ururiyay buugan oo aan maanta rabo inaan la wadaago oo ka duwan habka aan u wada hadlayno habkii khudbadaha siyaasiga ee ku saabsan hab aan isku weydaarsanayno waxa aan rabno inaan ku wada shaqeyno waxaan ku soo koobnay 7 yool oo aan rabno inaan tiigsanno yoolka koowaad wuxuu noqon doonaa isbeddel siyaasadeed in lagu sameeyo Puntland yoolka labaad waxaan rabnaa sugidda amniga Puntland inaan wax ka qabanno yoolka saddexaad waxaan rabnaa inaan dib u habayn ku samayno nidaamka maaliyadda iyo dhaqaalaha yoolka xiga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno bixinta adeegyada bulshadu ay u baahan tahay yoolka kale wuxuu noqon doonaa tayeynta dhinaca garsoorka iyagana inaan hawl badan ka qabanno iyo sareynta sharciga yoolka kale waxaan rabnaa inaan daryeelka deegaanka iyo xakamaynta isbedelada cimilada ku dhacay inaan wax ka qabanno yoolka toddobaad waxaan rabnaa dhalinyarada inaan si gaar ah ahmiyad gaar ah u siino midka u dambeeyana waxaan rabnaa haweenka iyagana inaan u samayno aragti gaar ah oo ka duwan hab maamuleedkii hore lagu dhaqmi jiray yoolka ugu horeeya haddaan dib u fiirino oo ah isbeddelka siyaasadeed
ee aan Puntland la doonayno waxaad ogtihiin Puntland waxay jirtaa 20 sano waxa uu qabsoomay waxyaabo badan waxa gundhigeedu ahaa nidaam siyaasadeed oo saldhigiisu ahaa in la helo maamul goboladii iyo degmadii ku bohoobay xilligaas ay ku midoobayaan maamulkooda iyo hogaankooda inay ururiyaan iyo saldhigga labaad oo ahaa in la helo dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaal ah waxa intaas nidaamka siyaasiga uu heliyay maadaama dadka ku heshiiyay ay ahaayeen beelo walaalo ah oo wada degan oo goostay inay nidaam dawliya u guuraan waxay hoosta ka xariiqeen inay helaan hab maamul oo loo siman yahay oo aan la isku eedin habkaas waxa saldhigiisu ahaa in la helo nidaamka xisbiyada badan iyo habka isdoorashada nidaamka maamul ee 20 sano soo socday ee saldhigiisu ahaa 3 sano u horeeyay in arinta laga gudbo caqabado badan oo la soo gudbaanaaday iyo dayac madaxda qaybtood ka timid waxa suuragali waayay inuu dalkan nidaamkiisa siyaasiga uu ka guuro hab qaybsiga beelaha ku dhisan oo uu guuro hab ka qaybgal bulshada oo dhan qaybaheeda marka nidaamka ugu horeeyo siyaasiga aan rabnay inaan bedelno waxa weeye dalkan inuu u foofo ama u aado dhinaca nidaamka ka qaybgalka bulshada Soomaaliyeed ee Puntland ku dhaqan oo dhan taas oo iyadana horseed u noqon doonta hadii Ilaahay idmo Soomaaliya inay noqoto dal dimuqraadi ah oo federaal ah oo dadkiisu taladeeda ay leeyihiin aysan noqon dad kooban waxa ay ka taliyaan taas ayaa dadku kala dugsoon karaa taas ayaa isxisaabtan ku imaanaya taas ayaa waxa ka soo dhaxbaxaya dadka kartida siyaasadeed leh hufnaanta leh amaanada leh maxaa yeelay dadka dooranaya dad badan bay noqon doonaan hadii Ilaahay idmo dad badan sida caadada ah wax qaldan iskuma raaci doonaan hadii Ilaahay idin ka dhigo marka waxaan rajaynaynaa in nidaamka siyaasadeed uu saldhig arinta uu noqon doono waxaan kala rabnaa in aan yoolka siyaasadeed saldhig uga dhigno in aan ilaalino midnimada Puntland iyo midnimada Soomaaliya midnimada Puntland waxay saldhig u tahay Soomaaliya oo mid ah haddii midnimada Puntland uu ku yimaado habacsanaan ama uu ku yimaado kala tag ama uu ku yimaado kala shaki waxa halis galaya inay Puntland wixii lagu yaqaanay oo ahaa inay dawlad Soomaaliyeed hormuud u noqoto inay meesha ka baxaan waxa cabsi dad badan ay farta wadnaha u hayaan nidaamka siyaasiga ee lagu soo caanamaalay inuu noqdo mid tayadiisu ay hoos u dhacdo sababta inay dadkaanu kala tagaan midnimadooda hoos u dhacdo markaasna dad aanan heshiis ku ahayn maamulka deegaanadooda ay damcaan sida haddaba dhacday marka waxaan rajaynaynaa maamulkeenu inuu mahmiyad gaar ah siiyo sidii midnimada maamul ee Puntland leedahay loo adkeyn lahaa loogana shaqeyn lahaa nidaamka iyo midnimada Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaal ah taasna waxa weeye waxyaabaha aan ajandayaasha sida gaarka aan u ilaalin doono qodobka saddexaad oo aan rabno dhinaca siyaasadda isbedelkeeda inaan gudhig uga dhigno waxa weeye dhinaca maamul wanaagga waxa saldhig u ah kala qaybsanaanta hay'adaha dawladda ee ku xardhan dastuurkeena waxa nasiib darro ah in wixii la qoray ama lagu heshiiyay ay noqdaan waxyaabo afka baarkiisa ah oo madaxdu ay noqoto inay siday doonaan la jiifiyaano bannaan uga dhigaan waxaan rajaynaynaa dawladda 5 sano soo socoto inay dhidibada u aasto wixii ku qornaa dastuurka dadkuna ku heshiiyay oo ah dawlad leh hay'ado iskorjoogteeya oo kala saaran hay'adahaas oo ah hay'adaha sharci dejinta oo leh dhammaan